Kuma ciyaarta casharkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa maanta ground wuxuu kaloo ku saabsanaan doonaa su-aal la weydiiyo ku saabsan korontada qof oo koronto gacanta ku qabanayo oona ayna korontada qabanaynin iyo groundigan xoogaa yar way is-shaabahaan haddaa groundiga fahamsan tahay marka groundigaan sharaxi doonaa markaan sharaxo qofkii korontada wuu fahmi doonaa jawaabtiisana waa ugu jawaabi doonaa ilaa hadduu yiraahdo distribution xoogaa yarna waa liisoo weydiiyey distributionka markaan dhahayno waa ballaaran yahay distributionka waxaa jira korontayaasha waaweyn oo kasoo qaadayaan daamka ama biyo xireenka kasoo qaadayaan kabacdi transformer step down ama step up inta kusoo sameeyaan magaalada keenayaan oo ilaa iyo tabeelaan dhahay baalahan keenayaan oo guryihii saas lagu gelinayo oo yani system dhan yani transformer kale imaanaya taas waa qayb tan kale waa maxaa hadda building oo kale hal building oo weyn isagana maxaad ku samaynaysaa markaad aad soo gelisid isagana waxaad usaysaa system oo distribution qol kasta guri kastaba distributionkaas aad ku samaynaysid oo taasna waa qayb laakiinse fadlan su-aashaada ma distributionka waxaad ka hadlaynaa miyaa ka imaaday from sourciga ha ahaado turbineka ha kasoo imaado ama daamka ha ka imaado ama ha ka imaado motor ha kasoo baxo korontada ilaa iyo magaalada kaas haddaa ka hadlaysid taasna waa sharaxi doonaa laakiinse haddaan distribution kastaba waxaa hooyo iyo aabbo u ah waa transformerka sida uu shaqeeyo haddaa fahamsan tahay distributionka lagu sheegayo transformerka lagu controlaa iyo fiilooyinka qof kastabana wuu fahmi karaa laakiin sharciga ugu korontada ahaan aniga sidaa dhankeyga xoogaa yar asdaa complicated waaye inaa fahamtid loo baahanya waa transformerka qaabka uu shaqeeyo inta kale dhan haddaa intaas fahamsan tahay sida loo xiro fahamsan tahay delta aad fahamsan tahay y aad fahamsan tahay step down markii lagu sameynaya aad fahamsan tahay maxaan u malaynaa distributionka systemkiisa 45% waa haystaa inta kale waa safety iyo sida loogu hortagayo maxaa weeye high voltagekaas ama voltagekaas sida loo controlayo maxaa loo isticmaalaa delta ama y maxaa loo isticmaalaa taasna inaad fahamtid oo yani aad fahamsan tahay balse xoogaa yar inta waxaan ka taaban doonaa groundiga aan xooga saari doonaa tan kale waxaan transformer xoogaa yar aan ka hadli doonaa kabacdi su-aasha la weydiiyo ku saabsan qofka muxuunan u qabanaynin korontada hadduu koronto qabto sabab taasna waan sharxi doonaa ilaa hadduu yiraahdo cashirkeenana laba qayb uu kala bixi doonaa labada qayb uu kala baxayna waa cashirkan aan hadda bilaabayo oo ku saabsan groundiga sidaad u jeedid maxaa weye polkan ama soomaali maxaa lagu dhaha ma aqaan marka aan detail yar ka qaadanayna kabacdi hoos usoo dhaadhacayna ujeeda hadda waa 3 phase baalaha aan kasoo bilaabo hot waaye kan dabow sidaa kanna dabow sidaa kabacdi halkan fusea ku dhagan kabacdi transformerka halkan ku dhagan sidaad ugu jeedid kabacdi neutralka wayarkiisa uu imaado uu ku dhagan yahay kanna waxaan u malaynaa inuu yahay kan saddexdan saddexdan waa iyakana waa maxaa waa 3 phase oo guriga galayo kabacdi kanna waa neutral kanna waa neutral kanna haddaa fiirisid waxaan u malaynaa dhulkuu ku dhagan yahay kanna dhulkuu ku dhagan yahay tabeelahan baalahan tabeela kula baalahan
ayuu xoojinayaa. Insulation halkan ku dhegan waa ujeedaa, kabacdi kan xoogaa yar aan taabtaba meeshaan. Sidaad ujeedid transformer ku dhegan. Transformerkan ha ku dheganaado. Transformerkan wuxuu kala delta iyo y aa loo xiraa. Markuu saan oo kale hadda yahay waxaan u maleynayaa inuu u xiran yahay delta sababtoo delta markaad ku xiraysid ground uma baahnid, y markaad ku xiraysid waxaad u baahantahay ground. Soomeyna y markaad u xiraysid waxaad u baahantahay ground, right? So ground Soomana groundiga waa kan hadlo y markuu xiray, laakiinse markuu delta u xiran yahay delta saas u xiran yahay. Transformerka le ka hadloyna. Tan kale transformerka calaamadiisa sorry saan ku leeyahay yaa badnaa. Groundiga saas waay. Kabacdi inta hadduu kan step down haddaan ku sameynayno oo kan yahay aan dhaho maxaa weeye 1200 hadduu yahay, kan dhan markaas wuxuu noqonaa aan dhaho from here to here 120 waaye aan dhaho. Laakiinse xisaabay ku xirantahay ogow. Xisaab la'aan wax shaqaynaya ma lahan. Step downka markuu sameynayo kan waa maxaa weeye primary waaye, kanna secondary waaye. Secondary waaye. Marka kan waa ground oo yacni saan u kala qaybsama. Markuu uu yahay aan dhaho markuu yahay 3 phase oo yahay wuu sii kala qaybsamaa kan yacni 3 phase markuu yahay kan wuu sii qaybsamaa. A, B, kabacdi C, right? Marka si kastaba mid kastaba wuu kala duwan yahay. Mid waxaa jira oo saan u xiran oo saan kala imaanayso, kan kala imaanayso. So marka transformer kastaba si wuxuu u kala xiran yahay ruleka raacaysa. Rulekaasa ku ilaalinaya, laakiinse mid kastaba qaab loo xiraayo jiro. Hadduu kan ku xiran yahay kanna kan ku xiran yahay kabacdi marka A hadduu yahay halkan, B oo yahay kan C. Soomaalia saas kabacdi kan kalena exactly saas oo kale. Marka khiyaarta waxaan hadda meeshan ku xariiqay kulli A, B, C.
way kala duwan yihiin markuu three phase yahay. Muhiimadda three phase markuu yahay iyo single phase markuu yahay step down. So wireka halkan ku jiro oo ama coin maxaa weeye fiilada duuban halkan qaabkay u duubantay iskugu xirantahay halkan kaaga sharaxooya wax micne samaynayso malahan. Marka inaad detail more aad baratay haddaad rabtid transformerga gooni aad u baranaysaa transformerga si fiican kugu sharaxay. Cashirkeena intaasuu ku dhagan yahay inaad fahamtid groundiga inuu ground la imaaday kana uu ground la'aan yahay oo noqon karo delta kana oo step down ku sameeyey ama step up ku sameeyey laakiin step down uu ku sameynaya sababtoo waayaradan iyo waayaradan ma lahan. Groundigana halkaana laga soo qabsaday halkan waa ujeeda ground ayaa jira halkaana guriga oo aaday. Muhiimadeena inta cashirkan intaanu ku egyahay kana sidaan inkugu sheegaba y noqon karaa ama delta uu noqon karaa yna waa sun ground aa la socdo uu xiran yahay deltana wuxuu u xiran yahay sun. So korontada intaan iyo transformerkaas ama hadduu yahay single phase ama three phase. So maadaama kan three phase yahay sidaan kuu sheegay sida uu xiran yahay waa tan haddan aan kuu sheegayo uu xiran yahay. A B C oo yahay pointiyadan inta point oo yahay intana point iyo kan kale isagana kugu xiran saas oo kale oo isku soo horjeedo markuu three phase yahay. Fadlan sida uu xiran yahay delta ama y waa inaad si fiican u hubsatid oo yacni markaad arrimahan aad soo galaysid korontada sababtoo ah a b c d oo leeyahay a b c oo leeyahay iyo x1 x2 x3 intana h1 h2 h3 oo leeyahay marka waa transformerka waxa lagu garanaya qaabka loo xiranayo taas waa muhiimadda. Khayr ay rajeynaa marka cashirkan intaanu nagu istaagaa.